waxaan idin sharxayaa film lagu magacaabo iBoy daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay subscribe dheh channelka mahadsanid filmku wuxuu ku bilaawanayaa wiil lagu magacaabo Tom wuxuu leeyahay saaxiib yaraantiisa oo lagu magacaabo Danny iskuulka Tom wuxuu si qarsoodi ah u jecel yahay gabar lagu magacaabo Lucky waqtiga break ay kulmayaan si ay ugu wada hadlaan arrimaha imtixaanka wiil dhaqar xun oo lagu magacaabo Eugene ayaa si lama filaan ah u soo dhaxgalaya hadalkooda Tom wuxuu la nool yahay aydiisa oo lagu magacaabo Nan habeenkaas Tom wuxuu damacsan yahay inuu Lucky gurigeeda kula kulmo wuxuu arkayaa albaabka gurigeeda oo iska furan isla markiiba gudaha ayuu galayaa sida muuqato wuxuu arkayaa 4 dambiilayaal oo Lucky kufsadeen oo mid ka mid ah uu duubay muuqaalka Tom markuu arkay dhacada isla markiiba uu caray wuxuu isku dayay inuu wac booliska dambiilayaasha ayaa daba orday markii wicitaanka laga qabtay waxa laga toogtay madaxa habeenkaas kadib Tom wuxuu ku soo toosayaa isagoo jiifa isbitaalka kadib markii uu kooma ku jiray 10 maalmood wuxuu arkayaa aydiisa oo isbitaalka ku daryeelayso kadib dhakhtarka wuxuu u sharxayaa xaaladda Tom dhakhtarka wuxuu u sheegay Tom in jajab ka mid ah taleefanka oo galay maskaxdiisa jajabka ayaa la galay xabadii madax kaga dhacday dhakhtarku wuxuu sharxayaa inuusan ka saari karin jajabka boqol sababtoo ah waxay aad khatar ugu tahay unugyada maskaxda wuxuu u sheegayaa inuu soo noqdo haddii ay dhacdo in waxyaabo la yaab leh ku dhacaan isagoo guriga joogo Tom wuxuu bilaabay inuu dareemo wax aan caadi ahayn haddaba wuxuu awood u leeyahay inuu si cad u dhageysto wada hadallada ka imaanaya aaladaha elektarooniga ee dadka kale gudbinta xogta digitalka ah ayuu sidoo kale arki karaa isaga sababta ayaan ah in jajabida telefoonkiisa ay ku darsameen maskaxdiisa waxay u egtahay inuu geli karo xogta adeegyada internetka adduunka oo dhan waxa uu soo saari karaa xog kasta si digital ah isagoo aan isticmaalin wax qalab elektaroonig ah wax kasta oo uu u baahan yahay ayaa duruub maskaxdiisa ku jira Tom waxa uu soo booqanayaa Lucky si uu u raali geliyo muddo dheer kadib iyagoo aanan is arag wuxuu ka qoomeenayaa inuusan wax badan ka qaban karin si uu ilaaliyo habeenkaas Lucky la kufsaday si kastaba ha ahaatee way fahantay waxayna rajaynaysaa in wax walba ay u fiicnaan doonaan sidii caadiga ahayd isagoo guriga ku soo socdo Tom waxa uu markale dhageysanayaa dhammaan wada sheekaysiga ka dhaca qalabka elektarooniga ah ee hareerihiisa Tom ayaa noqday mid aad u jahwareersan markuu arkay waxyaabo aan hore u arkin ama hore u maqal aakhirkiina meesha ayuu ku suuxay maalinta xigtay Tom ayaa soo kacay isagoo caajidsan wuxuu qorsheenayaa inuu ku laabto iskuulka kadib fasaxiisa qaliinka wuxuu iskuul kula kulmay saaxiibkiisa Danny wuxuuna u sheegay inuu aaga shaksan yahay Eugene kulug lahaanshaha dhacdii guriga Lucky ee habeenkaas wuxuu sheegay in taleefanka gacanta ee Eugene uu ku xirnaa weefiga Lucky markii uu shilka dhacayay laakiin Danny weli kuma qancin hadalkiisa markuu ku noqday fasalka Tom wuxuu si ula kaca u hubinayaa gudbinta xogta dhammaan taleefanada gacanta ee saaxiibadiis waxa uu doortay inuu diiradda saaro taleefanka Eugene aad ayuu la yaabay markuu ka dhax arkay muuqaal Lucky oo habeenkaas la kufsanayo laga soo bilaabo waqtigan wuxuu ku qanacsan yahay shakigiisa Eugene isagoo isticmaalaya awoodiisa sare wuxuu isla markiiba ku abuuray qarax yar taleefanka gacanta ee Eugene wuu naxay kuwa kalena way ku qosleen isaga habeenkaas wuxuu aaday xaflad si uu u soo basaaso Eugene iyo raggiisa hadda wuu og yahay in kooxda Eugene ay ka kooban tahay 4 Eugene oo ah hogaamiyaha kooxda kadibna wuxuu si toos ah ugu socday Eugene nasiib wanaag waxaa kala qabtay Danny inay Tom iyo Eugene isweeraraan wuxuuna xafladda ka wadayaa Tom markii ugu dambeysay Tom wuxuu u sheegay in Eugene uu ahaa dambiilaha dhacdada Lucky laakiin nasiib daro Danny weli wuu diiday hadalka Tom waxa uu ku soo noqday booqashadii Lucky si uu ugu farxiyo iyagoo saaran dabaq korkiisa waxay arkeen Eugene iyo raggiisa oo qoslayo sida iyagoo aan waxba galabsan waxa uu arkay in Lucky isla markiiba murugootay taas oo macnaheedu yahay inay dhab ahaantii ogaatay dambiilaha Eugene fariimo aan la garanayna ayuu Tom bilaabay inuu u diro Eugene bilowga argoosigiisa isagoo sariirtiisa jifo Tom wuxuu baranayaa sida loo jabsado nidaamyada isagoo isticmaalaya awoodiisa sare wuxuu si qarsoodi ah u argagixiyay Eugene iyo raggiisa kadib markii uu farsameeyay farsamada habeenkaas taleefanadooda gacanta isaga ayaa jabsaday si uu arko dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan isla habeenkii Tom wuxuu bilaabay inuu jabsado systemkooda laga soo bilaabo daminta nalalka gurigooda ilaa uu si qalad ah u diiwaangeliyo mid ka mid ah saaxiibada Eugene oo lagu magacaabo Cass oo xumaan sameynayo intii lagu guda jiray bandhiga iskuulka Tom wuxuu jabsaday laptopkii uu isticmaalayay macalinkiisa waxa uu soo bandhigayaa muuqaal ku saabsan Cass ardayda dhammaan ayaana ku qoslay Cass ayaa sidoo kale dareemaya xishood badan iskuulka kadib Tom waxa uu sheekadii u dambeysay u sheegay Lucky oo aan waqti dheer iskuulka imaanin aad ay ugu madadaashay sheekada oo ay weheliso Tom oo si qarsoodi ah fariin ugu diraya Lucky waxa uu fariinta ku dhex isticmaalaya naaneysta iBoy si aysan dad kale u garan oo ay ku jirto Lucky markii ay ka soo laabteen jiinka webiga si lama filaan ah Eugene iyo raggiisa ayaa ka hortagay Eugene waxa uu maleynaya in labadooda ay cabsi gelinayaan marka Eugene uu doonayo inuu garaaco Tom isla markiiba wuxuu u soo diraa fariin aan la garanaynin iyaga oo sheegaya inay bartilmaameedsanayaan qof qaldan Eugene iyo raggiisa ayaa isku dhaxyaacayo oo waxay eegaan cidda fariinta u soo dirtay Tom iyo Lucky waxay helayaan fursad ay ku baxsadaan kadib markii ay baaraan agaarka oo ay waayeen
kii fariinta u soo diray waxay damcaan inay baabuur ka xadaan wadada dhinaceeda markii ay ku guuleysteen inay baabuurka fuulaan ayaa si lama filaan ah baabuurkii si toos ah u xirmana wayna ka furweynayaan gudaha sababtoo ah Tom ayaa nidaamka baabuur ka jabsaday meel fog wuxuu ugu hanjabay Eugene iyo raggiisa raadiyaha gaariga waxa uu weydiiyey sababta ay u weerareen qoyska Lucky isagoo ka sameynaya gaariga qiiq badan waxa uu si bareer ah isugu dayay inuu aad uga cabsiyo iyaga isagoo gaariga rasaas ku ridaya kaas ayaa aad u cabsanaya wuxuu sheegaya inuu ku amray inay Lucky weeraraan qof lagu magacaabo Curtis kadib markii uu jawaabta helay Tom waa uu farxay inay tagaan wax yar kadibna baabuurka ayaa qarxay kadib markii uu helay macluumaad ku saabsan Curtis Tom wuxuu aaday guriga Curtis si uu alguto waxa la yaab leh Danny inuu sidoo kale joogay guriga Curtis telefishinka ay daawanayaan Curtis iyo asxaabtiisa waxa jabsaday Tom kadib waxa uu daaraa muuqaal ah in gaariga Curtis la gubay Curtis aad ayuu ula yaabay wuxuuna isla markii raacay saaxiibkiisa si uu u hubiyo xaaladda baabuurkiisa Tom wuxuu galay guriga Curtis kadib markay soo baxeen waxa uu burburiyay dhammaan qalabka elektarooniga ah ee guriga ku jiray isagoo isticmaalaya awoodiisa sare si lama filaan ah wuxuu sidoo kale helay sanduuq lagu keediyo daroogada wuxuu dejinayaa qorshe cajiib ah wuxuu daroogooyinka Curtis ku shubaa baakado yaryar oo badan wuxuuna dhigayaa meesha uu Eugene iyo raggiisa ay ku nool yihiin kadibna wuxuu hakargareynayaa saldhigga booliska si uu u sheego Eugene iyo raggiisa inay ku lug leeyihiin warshada daroogada caddeynta uu Tom hore u dhigay maalinta xigtay Eugene iyo raggiisa waxaa xiray booliska oo ay weheliyeen caddeynta dhan kale xisaabta bangiga Curtis ayaa sidoo kale Tom u jabsaday taasoo ka dhigaysa baaqi xisaabta bangiga ee Curtis mid eber ah habeenkii xigay Tom wuxuu si aamusan u dhageystay Curtis telefonkiisa isagoo uu hogaaminayo oo lagu magacaabo Elman wuxuu siinayaa Curtis digniintiisii u dambeysay si uu ogaado cidda qusaysa howlahooda xagga sare ee dhismaha Tom waxa isla markiiba la socdaa halka uu ku sugan yahay Elman laakiin ma uu helin wax macluumaad ah oo ku saabsan Elman isla mar ahaantana Curtis wuxuu amar ku bixiyaa raggiisa haray si ay u helaan goobta iBoy isaga oo la wareegaya dhammaan qalabka elektarooniga ah ee aaga si kastaba ha ahaatee weli ma oga in Tom uusan u baahneen wax qalab jabsi ah maalinta xigtay kadib markuu dhameeyay imtixaankiisa wuxuu qabtay calaamadda heshiis daroogo oo u dhexeeya Curtis iyo Elman wuxuu qorsheenayaa inuu fashiliyo wax kale iibsiga habeenkii isagoo gubiya dhammaan daroogooyinka Tom ayadii oo ka welwelsan dhaqanka Tom oo isbedelay waxay la kulantay Danny oo weydiistay caawintiisa si uu u daryeelo Tom Danny wuxuu aqbalay inuu caawiyo dhan kale Tom wuxuu daba raacay gaariga Curtis nasiib daro wuxuu lumiyay raadkii Curtis ee bartamaha safarka sababtoo ah Curtis wuxuu ku tuuray telefonkiisa meel qashinka lagu shubo kadib Tom ayaa jabsanaya dayax gacmeedka si uu la socdo gaariga Curtis ugu dambeyntii waxa uu dib u bilaabay safarkiisii uu ku tagay xaruntooda Tom wuxuu arkaa dad badan oo meesha ilaalinaya si dhuumasho ah ay u soo galayaan meesha wuxuu curiyaaminayaa mid ka mid ah ilaalada halkaas kadib wuxuu si toos ah u gudbay maandooriyaal meel ka fogeen goobtii uu ku sugnaa isagoo meesha ka baxaya si lama filaan ah Curtis iyo raggiisa ayaa qabanaya waa ina garaacayaan ilaa uu ku dhawaaday inuu dhinto xaalad degdeg ah waxa uu isku dayayaa inuu sameeyo dhawaaqyo aad u sareeyo isagoo wata awoodii sare taas oo fargelin karta maqalka qof kasta sidaas ayuu si nabad ah ugu baxsan karaa meeshaas Tom wuxuu ku toosay meel go'doonsan oo webiga agteeda ah dhanka kale Lucky weli waxay ku sugaysaa iskuulka sababtoo ah maalintii hore waxay ku ballameen inay si wada jir ah u galaan imtixaanka Tom ayaa imaanaya iskuulka imtixaankoo dhammaaday Lucky way ka niyad jabtay isaga iskuulka dibadiisa meedka kaas oo kor ka laalaadsan Danny wuxuu la kulmay Tom si uu arko sida uu yahay kadib Tom wuxuu weydiiyay Danny qofka dilay kaas Danny wuxuu ku jawaabay inay u badan tahay inuu dilay iBoy wixii markaas ka dambeeyay Tom waxa uu dareemayaa dhammaan dhibaatooyinkii uu keenay isaga iyo awoodiisa sare waxa uu dib ugu noqonayaa dhakhtarkii madax ka qalay isaga oo weydiisanaya inuu ka saaro jajabyada telefonka gacanta ee weli maskaxdiisa ku jira dhakhtarka uu diiday sababtoo ah jajabka telefonka gacanta ayaa si qoto dheer ah u dhex jira maskaxda Tom si kale haddii loo dhigo ka saarista waxay la mid tahay dilka Tom waxaas oo dhan isagoo ka qoomeenaya ayuu dareemayaa inuu dambiile yahay ayuu guriga ku soo noqday marka uu soo galay guriga Elman waxa uu ku sugayaa gudaha iyadoo raggiisa ay qoryo ku fiiqayaan madaxa Tom ayadiisa ayaa sidoo kale la soo afduubtay Elman wuxuu ogaaday inuu qofka isticmaalaya naaneyska iBoy uu yahay Tom taas oo kaliya ma ahan Elman waxa kale oo uu ogaaday in awoodda weyn ee Tom uu jabsanaya iyadoo aan la isticmaalin aaladaha elektarooniga ah waxaa soo baxday wuxuu ka helay dhammaan macluumaadka Danny kaas oo daawanaya Tom waqtigan oo dhan Danny wuxuu diyaar u yahay inuu u sheego macluumaadka si uu lacag u helo Elman wuxuu ku amray Tom inuu jabsado nidaamka bangiga halkaas oo lacagta lagu wareejin karo akoonkiisa bangiga markii hore Tom wuxuu diiday inuu sameeyo laakiin Elman wuxuu ku hanjabayaa inuu la kadili doono haddii Tom uu hoggaansami waayo amaradiisa ugu dambeyntii Tom wuxuu doortay inuu u hoggaansamo isaga wuxuu bilaabay inuu jabsado nidaamka bangiga oo si tartiib ah u bixiyo lacagta xisaabta bangiga Elman qofna kama warqabin Tom wuxuu jabsaday
taleefanka gacanta ee Eugene si uu wac booliska. muddo kadib booliska waxay yimaadeen baqaarka si ay u baaraan aaga. si kastaba ha ahaatee Eugene iyo raggiisa waxay ku guuleysteen inay ka baxsadaan raadinta Lucky oo aragtay qori dhulka yaal isla markii way qaadatay oo waxay ku fiiqday qoriga Eugene iyo raggiisa. markaan waxay maamushay inay la baxsato qoriga Eugene. markay rabtay inay meesha ka baxdo waxay la kulantay Elman iyo Tom. Elman oo Tom qori ku hayo ugu dambeyntii way soo noqotay. Elmanna wuxuu ku amray Tom mar kale inuu bilaabo bixinta lacagta akoonkiisa bangiga. Tom waxa isku dayay inuu naftiisa iyo Lucky badbaadiyo isaga oo jabsaday taleefanada gacanta ilaa uu ku qarxiyo mid walba. Tom isagoo baxsan rabo wuxuu si lama filaan ah dhabarka bir kaga dhufanaya Elman oo rabo inuu dilo Tom ay Lucky gacanta ka tooganaysaa maadaama uu weli xogaa tamar leeyahay. Lucky ayuu feer ku dhufanaya markeeda. Tom oo arkay dagaalka aad buu u hanaaqay wuxuu soo saaray awoodiisa intiisa kale isagoo ururinaya hirarka naxdinta leh oo ku tuuray Elman ilaa uu ka dhinto. habeenkaas kadib Tom waxa uu ku soo laabtay koomo. waxa uu soo noqday dhowr maalmood kadib waxa isbitaal ku heliyay ayadiis. arrimuhu waxay bilaabeen inay soo fiicnaadaan tan iyo markii Elman dhintay. hadda aaga Tom uu ku nool yahay waa nabad, wax dembi ahna ma jiraan. Danny oo khiyaanaya Tom wuxuu rabaa inuu yiraahdo waan ka xumahay isagoo Tom siinayo lacagtii uu ka helay Elman. mar hore Tom wuu diiday lacagta wuxuuna u sheegay in wax walba aan lacag lagu bixin karin. waxaa shaaca laga qaaday in Danny uu ahaa qofka duubay muuqaalka habeenkii dhacda Lucky. dhab ahaantii saaxiibtinimadoodu weligeed ma ahaan doonto sidii hore. dhan kale Tom iyo Lucky waxay bilaabeen taariikhdoodii ugu horeysay. waxay dib u heli karaan xasiloonidooda oo hadda Lucky way ogaatay in aabbo uu yahay Tom. awoodiisa ugu sareysa ee wax ku jabsado ayaa weli jirta taasoo u isticmaali karo inuu sameeyo waxyaabo wanaagsan. waad ku mahadsantahay daawashadaada muuqaalka tan iyo filim kale oo xiiso leh. bye.